السلام عليكم أصحابتيدا كسو دhowaada barnaamijkani Sheekoy Sheeko with Miss Mariam. Yay! Assalamu alaikum. Thank you for joining us today. Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay. Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankan kalkuhe. Harfahan akhrina, ha ha. Midabadan barana, ha ha. Tiroyinkan tirina, ha ha. Tiroyinkan tirina, ha ha. Sheekoyinkan dhegaysana, ha ha. Sheekoyinkan dhegaysana, ha hay. Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay. Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankan kalkuhe. Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay. Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankan kalkuhe. Kuwani waa indhahayga. Indho. Indhahayga. Kuwani waa indhahayga. Indhahayga. These are my eyes. Indhahayga. Can you point to your eyes? Indhahaaga aaway. Indhahaaga taabo. Indhahayga. My eyes. Fartaada ku taabo indhahaaga. Indhahaaga. Indhahayga means my eyes. Indhahayga. Indhahaaga means your eyes. Fartaada ku taabo indhahaaga. Can you point to your eyes? Do it with me. Ready? Fartaada ku taabo indhahaaga. Point to your eyes. Say indhahayga. Indhahayga, my eyes. Heer sare. Kani waa afkayga. Kani waa afkayga. This is my mouth. Afkayga. But if you want to say just mouth, you say af. Mouth is af. Af. If you want to say my mouth and you're talking about yourself, you say afkayga. 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 My mouth. Afkayga. This is my mouth. Ma dhool cadayn kartaan? Can you smile? Show me your best smile. Ready, set, go. Smile with Miss Mariam. Haye, ko, laba, saddex. Pretend you're taking a picture. Ready? I'm the camera person. Ready, set, go. Wow, so beautiful. What a beautiful smile. Can you show me your best smile? Smile. Be happy. Our ears help us hear. Our ears help us hear. And listen. Dhegahayna waxay nagu caawiyaan inaan wax ku maqalno. One ear is dheg. I would show you, but my hijab is covering. Dhegahayga. My ears. Dhegahayga. One ear we say dheg. Two ears are dhegahayga, my ears. Farta dhegaha saar. Farta dhegaha saar. Ma maqli kartaan waxan? See if you can use your ears to hear the sound. Ma maqli kartaan? Can you hear? That is the sound of an ambulance truck. Kind of goes wee wee wee. Can you make that funny sound? Wee wee wee. Si cajiib ah ayaad u dhegaysataan. Kani
waa sankayga. Kani waa sankayga. This is my nose. Kani waa sankayga. This is my nose. Sankayga. Do you hear a pattern? Indhaha, Dhegaha, sankayga. Kani waa sun. Sun means nose. Sun. Indhaha means my eyes. Dhegaha means my ears. And sankayga means my nose. Sankayga, sankayga, sankayga. Farta saar sankaaga. Touch your nose. Boop, boop. Heesta. This is my nose. Sankayga. Ma dhaqdhaqaajin karta sankaaga? Ma dhaqdhaqaajin karta sankaaga? Can you wiggle your nose? Who wants to wiggle their nose? Ready? Let's be silly. Set, go. Oh my goodness, you're so silly. Try it with me. Can you wiggle your nose? Will you do it? Will you be silly with me? Haye, sankaaga dhaqdhaqaaji. Wiggle, wiggle, wiggle. We're wiggling our nose. Jilbahaaga taabo. Awi jilbahaaga. Awi jilbahaaga. Jilbahaaga taabo. Shaqo wanaagsan. Awi suulashaada. Awi suulashaada. Ma taaban kartaan? Awi suulashaada. Heesta. Hey friends, do you want to sing a song with me? This song is the head, shoulders, knees, and toes song, but in Somali. Do you want to learn? I can't hear you. You gotta say it louder so I can hear you through the screen. Do you want to learn the head, shoulders, knees, and toes song in Somali? Ha! Ha! Very good. Very good. Let me teach you. Haya anadin baro. Madaxa, Qeybaha, Jilbaha iyo suulasha. Madaxa, Qeybaha, Jilbaha iyo suulasha. Indhaha, Dhegaha, sanka iyo afka. Madaxa, Qeybaha, Jilbaha, suulasha. Hey, we're going to sing it faster. Are you ready? Sing it with me. Stand up. Madaxa, Qeybaha, Jilbaha iyo suulasha. Madaxa, Qeybaha, Jilbaha iyo suulasha. Indhaha, Dhegaha, sanka iyo afka. Madaxa, Qeybaha, Jilbaha, suulasha. Faster. Madaxa, Qeybaha, Jilbaha iyo suulasha. Madaxa, Qeybaha, Jilbaha iyo suulasha. Indhaha, Dhegaha, sanka iyo afka. Madaxa, Qeybaha, Jilbaha iyo suulasha. Shaqo wanaagsan. Hey, not just a moment. Please make sure you like, share, and subscribe to our channel. That way we can create more videos just like this one. Yay! Wa. Who remembers how to say two in Somali? Yes, labo. Labo is our number of the day. Our number of the day is laba. May tusi kartaan laba farod. May tusi kartaan laba farod. Can you show me two fingers? Hold up two fingers just like this. Laba farod. Ko labo. Laba farod. Heesta. Waxaynu leenahay laba indhood, laba dhagood, laba gacmood. Ilaahay wuxuu ina siiyey laba gacmood, kow, labo, laba indhood, kow, labo, iyo laba dhagood, kow, labo. Xarafka maanta waa xarafka da, 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 da sida. Repeat after me. Dhagah, dar, dhag. Afkeenana wuxuu inagu saacidaa inaan ku hadalno. You can use your mouth to talk. The mouth has so many jobs.
It helps us talk, it helps us eat, and it helps us laugh and smile. It shows happiness. Afkeenu wuxuu inagu caawiyaa inaan wax ku cunno. Our mouths help us eat. Afkeenu wuxuu inagu caawiyaa inaan wax ku cunno. Can we pretend to chew something? That's yummy. Can you pretend to chew? Keenu wuxuu inagu caawiyaa inaan wax ku cunno aan ku cabno. Aan qosolno. Can you give me a good laugh? Ready, set, like somebody told you the funniest joke. Ready, set, go. Oh my goodness, that is so funny. Great job acting. Oh, we see some actors. I see so many nice actors. Kuwani waa gacmahayga. Gacmahayga. This one hand we say gacan. Gacan. Hand is gacan. Two hands you can say, and if you're talking about your hands, you say gacmahayga. Kuwani waa gacmahayga. These are my hands. Gacmahayga. These are my hands. Gacmahayga. One hand is gacan. Both of my hands waa gacmahayga. Gacmahayna ina tusa. Show us your hands. Gacmaha dad ayaad ku caawin kartaa. Wax ayaad ku bixin kartaa. Your hands can help you help others. Whether it's helping open a door, helping somebody up, or even just holding hands. Kuwani waa lugahayga. Lugahayna waxay nagu caawiyaan inaan ku orodno. Our legs help us run. Inaan ku orodno. Help us run. Yo, inaan ku bodbodno. Do you know what bod means? It means to jump. Haye, ila boda. Jump with me. Ila boda. Ready, set, go. Jump. Jump, jump. Ila boda. Jump, jump, jump. We're jumping. Ila boda. We're jumping. Jump, jump all around. We're jumping. Whew. Miss Mariam, way dashy. One dally. I'm tired. Sheesh. Madashin. Are you guys tired? Madashin. Waxaad samaysan wax cajiib ah. Dhulka, the floor. Dhulka kula tumo lugahaaga. Can you stomp your feet on the ground? Ready? Go. Stomp, stomp, stomp. Stomp, stomp, stomp. Let's stomp. Dhulka kula tumo lugahaaga. Stomp, stomp, stomp. We're stomping. We're stomping. We're stomping, stomping, stomping. Ooh, nice stomping. Come on, si fiican ugu tumo. Stomp, stomp, stomp. Stomp, stomp, stomp. Yay! Nice job stomping. Haye, aaway Mr. Potato Head indhihiisa aaway. Very good. Indha. Haye. In Somali, and for nose, we say sun or sanka. Where is Mr. Potato Head's sun kisa? Sun. Can you say sun? Sun. Sun. Louder. Sun. Say sun. Sun. Very good. Haye, in Somali, for mouth, we say, do any of you know how to say mouth? Afka. Afka. Very good. Afka. Haye, afkiisa aaway. Nice job. Okay, we found indhihiisa, sankiisa, iyo afkiisa. Haye, maxaa ka maqan? What's left? What's left from his head? We're missing a helmet. Okay, we can say kofiyat. Can you say kofiyat? Coffee. Do you know what kofiyat means?
Helmet. A hat, like a hat, right? All right. What are we missing? His. Ears. How do we say ears in Somali? Dega. Digga. Say dega. Digga. Hey, if it's one ear, we say deg. If it's two ears, we say dega. Hey, put them in. Dega. Ha. Hey, maxaa ka maqan? We have indihiisa, his nose, sankiisa, his mouth, afkiisa, and dhegihiisa, his ears. Does he need maybe some hands? Yeah. Gacmihiisa aaway. Ugeli hoyo. Gacmihiisa aaway. Very well. Haye maxaa ka maqan? Maxaa ka maqan? What's missing? Maxaa ka maqan? His pants. Sarwaalkiisa ka maqan. Ugeli bal. U xir. I can do it. Haye u xir. Kabo. Kabo. Haye kabihiisa u xir. Ugeli kabihiisa. hal kabi u xidhnay. Haye kabtii kale waa kaas. Haye hadda diyaar u yahay. Mr. Potato Head, are you happy? Ha, waan faraxsanahay. Haye. Shanta dareen. Indhaha. Allah wuxuu i siiyey indho aan wax ku arko. Indhahayga waxaan ku arki karaa waxyaabo badan oo cajiib ah oo uu Ilaahay abuuray. Waxaan ku arki karaa qoyskayga. Waxaan ku arki karaa saaxiibadayda. Waxaan ku arki karaa ubaxyo qurux badan. Dhegaha. Allah wuxuu i siiyey dhego aan wax ku maqlo. Taabo dhegahaaga. Waxaan maqli karaa shimbiraha heesaya, quraan la akhrinayo. Ilaahayow adiga ayay mahad ku sugnaatay oo dhegahan i siiyey. Afka. Allah wuxuu i siiyey af aan ku hadlo. Taabo afkaaga. Waxaan dhihi karaa eray naxariis leh. Waxaan dhihi karaa waad ku mahadsan tahay. Allah ayaa mahad u sugnaatay oo afkan i siiyey. Allah wuxuu i siiyey san aan wax ku uriyo. Taabo sanka. Waxaan ku urin karaa ubaxyada. Waxaan u isticmaali karaa inaan ku uriyo cuntooyinka macaan. Allah ayay mahad u sugnaatay oo sankan i siiyey. Gacmaha. Allah wuxuu i siiyey gacmo aan wax ku caawiyo. Itus gacmahaaga. Waxaan caawin karaa qoyskayga. Waxaan wax la wadaagi karaa asxaabtayda. Gacanta ayaan u hatin karaa qof. Jilbaha iyo cagaha. Allah wuxuu i siiyey jilbo iyo cago aan ku dhaqdhaqaaqo. Cagahaaga dhulka ku garaac. Waxaan awoodaa inaan ku socdo, inaan ku ordo, inaan ku boodboodo, inaan ku ciyaaro. waxaynu isla soo gaarnay waqtigii ducada. Waqtigii ducada. It's time for our prayer. Alhamdulillah. 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 Can we give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala? Say Alhamdulillah. Thank you, Allah, for my eyes to see, for my ears to hear, for my nose to smell, for my mouth to eat, and for my hands and legs to get around and do what I need to do. So can we say Alhamdulillah? Ready? Alhamdulillah. Alhamdulillah. We are giving thanks to Allah and we are grateful for everything Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Allahumma afini fi badani. Allahumma, can you repeat after me? Allahumma afini fi badani. Fi badani. Allahumma afini fi badani. Try it by yourself. Ready? I want to hear you say it. Sah. MashaAllah. The meaning is Ilaahiyow jirkayga ka yeel mid caafimaad leh. Aan mar kale isla dhahno. Allahumma afini fi badani. Allah, please make my body able to do anything. You're basically asking Allah to provide you great health,
to make your body able and have great health. Inshallah, I wish that for all of you and your families. Say Ameen. Ameen. Can you say Ameen? Allahumma afini fi badani. Ameen. Ogaada, Ilaahi wuu wada idin jecel yahay. Cunug walbana waa mid gaar ah. Everybody is special in their own way and Allah loves you. Dadka qaar way hadli karaan. Some kids can talk. Kuwa qaar ana ma hadli karaan. Way aamusan yihiin. Some kids can talk while other kids cannot talk. Yet, at least. Some kids can talk. Way hadli karaan. Qaarna way aamusan yihiin. Ma hadli karaan. Carruurta qaarkood way socdaan. Some kids can walk. Qaarkoodna waa curyaamin, meaning they aren't able to walk, and that's okay. Carruurta qaar si fiican wax uma maqli karaan. Kuwa qaarna si fiican wax uma arki karaan. Taasna waa caadi. Ogaada inuu cunug walba uu yahay mid gaar ah. Every single child is special and unique in their own way. Allah loves everyone, whether you can hear or not, whether you can see or not, whether you can walk or not, or if you have any other different abilities or you don't. Allah still loves you. Ilaahi wuu idin jecel yahay. Aad iyo aad. Can you all be kind friends? Asxaab naxariis leh. Naxariis badan. Can you be kind friends? Naxariis means kindness. You have a good heart. Kindness. Naxariis. Asxaabay, ma noqon kartaan asxaab naxariis badan leh? Ha! Say it louder. Codkeena kor u qaada. Asxaabay, ma noqon kartaan asxaab naxariis badan leh? Ha! You're going to be a kind friend today. You promise? You promise you'll be a kind friend? Aw, thank you. Kuwani ma indhaha mise waa dhego? Heer sare, kuwani waa indhihiisa. Maxay idinla tahay? Ma dhega mise san? Waa sax, kuwani waa dhegihiisa. Ma waxaan idhahnaa san mise gacmo? Sax weeye, kani waa sankiisa. Asxaabay, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni Sheekoy Sheeko with Miss Mariam. Waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo barwaaqo. Haye hadda waxaan isla qaadanaa heesteeni nabadgelyada ahayd. Diyaar ma tihiin? Haye ila heesa. Sing with me. Ila heesa. nabadgelyo asxaabtayda waa waqtigii maca salaamada farxad ayaan wadaagnay mar kale ayaan is arki doonaa. Assalamu alaikum, boys and girls. See you next time on Sheekoy Sheeko with Miss Mariam. Hi, I'm Miss Mariam.